خالد محمد شيخ محمد وويل دنيرة waxa uu ku nool yahay magaalada Gabiley waa arday wax ka barta jaamacadda Golis tan iyo intii uu garaasaday waxa uu hays koriste bare masaarifta xaafadooda iyo maareynta noloshiisa taasi oo gundhig u ah hayaanka uu tiigsanayo ee kaga gudbayo marxaladan uu hadda ku guda jiro shaqooyin badan oo soo qabtay wax ka soo gudbay sanadii 2018 ayaa waxa uu ka shaqo galay hotelka Ali Xawaash ee magaalada Gabiley waxa uu shushubaa shaax ama qaxwa taasi oo ta kaliya ee iskaga bixiyo fiida jaamacadda kuna dabro biilasha xaafadooda oo uu isagu gacanta ku hayo shaqadan dadka qaarkood waxay u arkaan mid hooseysa laakiin isaga waxa uu tahay shaqo abuur baaxad leh oo uu noloshiisa meel sare ku gaarsiiyay taasi oo horseeday inuu dhigto jaamacad ama uu noqdo arday jaamacadeed magacaygu waa Khalid Maxamed Sheekh Maxamed waxaan ka mid ahay arday jaamacadeed kana dhigta jaamacadda Golis faculty-ga accounting-ga ruuxaantiina de shaqaysto shaqada caynkana haya de waxaan ahay nin maxay ahaday yaani self service shaqaysanayana waxna dhiganaya taasina waa dhaqan ku yar ruuxaantii dalkeena waxaan dhalinyarta dalka ku boorinaya ama ku dhiirigelinaya in iyagoo yaani ay wax qabad samaysan karaan iyagoo shaqaysanaya waxna baran karaan ruuxaantii ay noqon karaan qof self service ama self sufficient saasawgeed waxaan leeyahay de kulli dalkeena nimca fadhida ruuxaantii qofkana waxa ku waajiba inuu research fara badan sameeyo soo noloshiisa oo meel u saari lahaa kulli leefalada noloshu way kala duwan yihiin maanta dalka waxa la yiraahdaa dalka waxa ka jira employment baahsan ama bila amal baahsan ruuxaantii bila amalka baahsan dalka ka jira taas horta kulli waa been dhalinyartu marka jaamacada ka soo baxda iyagoo shahaadooyin sitaad arkaysa iyagoo goobaha shaah lagu cabo ama goobaha kafeteriyada iska fadhiya ruuxaantii bila amalku Mareykanka ma ku jira balse waxa loo baahan yahay in qofku sameeyo yaani shaqo abuur ama business oo isagu iska leeyahay ama meel oo shaqaale ka noqday wuxuu tiigsanayaa inuu gaaro hadafka iyo humaaga oo calaamadsan taasi oo shaqadani ay tahay jaranjarta uu halbeegiisa ku gaarayo Khalid Maxamed Sheekh kamid ah shaqada kamana niyad jabo wuxuu rumaysan yahay in marxaladan ay tahay salaanka ama tareenka uu raacayo halka uu calaamadsan Khalid waa shakhsi hawlkara firfircoon oo dadku ugu yeelan halyeeyga shaqada taasi oo qulubta bulshada kaga kasbaday raali ahaanshihiisa iyo xamilka shaqada adag ee qaar badan oo qeyrkiya ay ka xaragoodaan wallahi shaqada waxaan ka shaqeynayay horta markan ahaa grade 2 baan shaqadani miday kulli noloshu iska adagtay waqtigii waayaha adag awgeed ma iigay shaqada caynkana ruuxaantiina de kulli yaani waxaan isidhi maanta waad leedahay awood aad waxna ku barato aad yaani income aad ku soo xarin karto samirka iyo dhiiranaantu waa ta ka fadhiisin weyday waxbarashadiisa heerka jaamacadda iyo bixinta masaarifta qoyskiisa taasi oo ay saxaabtiisu ugu yeelaan geesigii dhiiranaa shaqadu doonaa ka shaqeeya ama meel sare ka shaqeeya ama meel hoose ka shaqeeya low aan hay horta kulli shaqo waa shaqo hadda halkan ka shaqeeya waxaana kabriyadi shahna waan kariyo waan dhigaa ruuxaantii hotelka qaybta kale restaurant waan ka shaqeeya yaani hada all of ta shaqo kasta iga soo horbaxda oo aan u arkay inay nolosheeda ka fiinayso ruuxaantii waan qabtaa anigu aan u kala eegin level ay tahay iyo nooc ay tahay doona kulli yaani tani waa temporary noloshuna waxay fiican tahay inaad yeelatid wax ku meel gaara marka hadee kulli tani waa base-kayga hoose laakiin waxay qorshaysan inaan dalkan ka noqon karo in madaxa ama businessman waayo waxaan nin kartire shaqaysanay waxna baranayo self sufficient ama self service qaar kamid ah macaamiisha uu shaaxa u shushubo Khalid Yare ayaa tilmaamay inuu yahay halyeey shaqo oo mustaqbalka noloshiisa iyo midda jaamacadda ku maaraya shaqadan oo dadka qaarkood ay u haystaan shaqo hooseysa yarka Khalid leedaado oo yar very active oo ah intaanu halkan ku aqaanay oo dadka badana loo baahan yahay in la dhiirigeliyo oo shaqaynaya maaha shaqaduna waxbaan aqaanayo waan fadhiyaa maaha waxa weeyaan shaqadu inay meeshay ku gashaba aad ka soo saartid maadaama uu dan yar uu yahay oo haddana iskeenay maanta waxaan markhaati ka ahay maalinta uu maqan yahay meeshaas oo dhan way tawdaa yarkaasi waana inaan aad wax akhlaaq fiican weeyaan xagga akhlaaqda qofka waxa lagu raacano waa dabeecadda iyo akhlaaqda ayaa ka muhiima shaqada isagoo maqaaxi ka shaqaynaya ayaa maanta haddana akhlaaqdiisu boqolkiiba boqol qaar badan ay dhaantaayo ilaa heer jaamacadeed uu maanta marka qofka dhalinyarta caynkaas waxa weeye in la dhiirigeliyo ayaana ku talinayaa
arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli boqolkiiba 90 dhalinyarada Soomaaliland ay ku sugan tahay shaqo la'aan balse badankoodu kuma dhiiradaan inay shaqo abuur ka dhigtaan shaqooyinka noocan ah waa Jacfar Caawil Hereeri telefishinka Sahan magaalada Gabiley